bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka caawa fagaare production waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo fadhiga baarlamaanka ka sheegay in ku-xigeenkiisa labaad Mahad Cabdalla Cawad uusan matalin isagoona ka soo horjeestay shirka la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaare Khayre iyo wafdi kale oo la filayo in bari ay gaaraan magaalada Garowe si ay uga qayb galaan aaska Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Maxamed Cabdi Yuusuf oo dhawaan ku geeriyooday dalka Kenya ayaa maanta lagu aasay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland nin Soomaali ah oo mindi ku weeraray 3 dumar ah magaalada Oslo ee dalka Norway qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka oo maanta gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xiriirka Masar iyo Soomaaliyana wuxuu qarka u saaran yahay inuu go'o 60 sano kadib haddaba maxay isku hayaan dawladahan warbixin ayaan idinkaga hayaa qodobadaasi iyo qaar kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa fagaare production fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee caalamka u diyaar garooba qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan markale kulan wacan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay xaruntooda Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo fadhiga baarlamaanka hadal ka jeedinayay ayaa si cad uga soo horjeestay shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka ee ka furmaya magaalada Dhuusamareeb gudoomiye Mursal ayaa sheegay in aysan aqbalaynin doorasho dadban oo xilligan soo laabata wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaana howlaha doorashada xilligan ay taalo baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in dowlad goboleedyada dalka aysan xaq iyo awoodna u lahayn in ay doorashada Soomaaliya go'aan ka gaaraan loona baahan yahay in baarlamaanka loo madax banaaneeyo doorashada sida uu yiri qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aaday wadankan sharci doorasho ma lahayn wadanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino haykal dawladeed dhisan baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin qodobka 47 ayaa xaq u siinay marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhameystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha shaqo badan aan soo qabanay shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaan ku hayno oo ah wax ka bedelida sharciga xasaabta siyaasadeed gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka carooday safarkii shalay uu Dhuusamareeb ku tagay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad wuxuuna sheegay in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka uu ku sugan yahay Dhuusamareeb uusan matalin baarlamaanka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay taytalka dawladda waa la yaqaanaa kala sarreynta hay'adaha dawladda waa la yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga marka saaxiibka anaga danihiisu u aaday waxaan kaloo waliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga digaynaa dawladnimadu waxay ku dhisan tahay protocol arrintan ayaa u muuqata mid uu uga hor imaanayo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii dowlad goboleedyada ee ahaa in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah taa oo bedelkeedana la aado doorasho dadban sidoo kale wararka baarlamaanka ayaan ku guda jirnaaye sidoo kale xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagana si caro leh uga hadlay safarkii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad uu shalay ku tagay magaalada Dhuusamareeb
xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa baarlamaanka ka hor yiri annaga oo dhan waxaa naga buuxa kulundiyaal siyaasadeed. xildhibaan dalxa oo ka hadlayay kulankii maanta ee xildhibaanada ayaa waxa uu sheegay in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawad uusan magaalada Dhuusamareeb ku tagin casuumaad loo soo diray ha yeeshee uu iska tagay, taasina ay tahay arrin aan wanaagsanayn. waxaan maqli jiray waliimada marka la qabto dadna casuumaaday ku tagaan, invitation loo keenaa, awil baa maanta ama ziyaaro xataa hadduu qabo ama hadduu duco qabo ama hadduu waliimo qabo sidaasaa lagu tagaa. dadna ayagoo aan la wicin ay tagaan, dadka meesha ay iska tagaan ayagoo aan la wicin. annaga dadka reer banaadirka waxay yidhahdaan kaluundi waa yidhahdaan ninkaas. kaluundi waxaa la yidhahdaa ninka aan sabta laga wicin asiga iska taga. xataa si sharaf leh looma maamulo, korkiisaas xunta lala marmaraa sababtoo aan la wacay ma aha. magartaya marka sabar badanaa looga baahan yahay. marka xildhibaanayaalow annaga gudoomiye ku-xigeenka hadda keligiisa eedayn maayee annagoo dhan baa waxaa naga buuxa kaluundiyaal siyaasadeed. magartay horta aan iska dayna kaluundinimada. gudoomiyaha meesha uu ka hadlay meel adiga aad ka leedahay horay haddii gadaal lagu geeyo wax kaaga meesha falxun ma jirto. waa inaa qofka bini aadamka waxaa la yidhi ascab shayin lilinsaani an yacrifa qiimata nafsihi. ninka waxa ugu dhib badan inuu garto qiimaha dadnimadiisa. magartaya meeshii lagaa tago tiirka ohow andhaana annaga meeshaan lagaa tabayna tifka ohow. magartaya tif annaga golaha shacabka haddii xasaanadiisii iyo sharaftiisii gudoomiyow adiga iyo gudoomiye ku-xigeenkaagii ee idinka soo yeertay in la ilaaliyo sharafta baarlamaanka oo idin markana Garoowe. Allah u naxariistay waxaa maanta magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland lagu aasay meydka madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Yuusuf oo dhawaan ku geeriyooday dalka Kenya. aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka, ehelada marxuumka iyo mas'uuliyiin kale. madaxdii kala duwanaa ee ka hadashay aaska madaxweynihii hore ee Puntland ayaa u tacsiyeeyay eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore ee Puntland, waxayna sheegeen inuu ahaa nabadoon wax badan u soo qabtay reer Puntland. Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi ayaa xanuun hayay waxa uu 12 bishan ugu geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. haddii aan ku sii socdo wararka Garoowe, qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, halkaasi oo ay kaga qayb galayaan aaska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo halkaasi lagu aasayo. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi ay hogaaminayaan ayaa ka degay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana garoonka diyaaradaha ee Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa isna la filayaa inuu beri aado magaalada Garoowe si uu uga qayb galo aaska Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. sidoo kale beri waxaa lagu wadaa in magaalada Garoowe ay tagaan madaxweynayaashii Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, kuwaas oo iyana ka qayb gali doona aaska Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. nin Soomaali ah oo ku sugan magaalo 90 kiiloomitir u jirta magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa mid ku weeraray 3 dumar ah oo 2 ka mid ah ay Soomaali yihiin halka midda saddexaadna ay cadaan ahayd. warbixin booliisku ay soo saareen hal saac kadib weerarka ayaa lagu sheegay in haweeneydii cadaanka ahayd ay dhaawacii soo gaaray ay u dhimatay, halka labadii Soomaalida ahaana ay midkood xaaladeedu liidato. booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay la xiray, welina ma cadda sababta keentay in uu weeraro 3 dumar. hayeeshee qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu maskaxda ka xanuunsanaa. markan haddii aynu eegno xiriirka dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa qarka u saaran in uu go'o 60 sano kadib. badmadow iyo xiisad kacsanaan ah ayaa ku xiran mustaqbalka xiriirka Masar iyo Soomaaliya, taasi oo sabab u ah mowqifka aan cadayn ee biyo-xireenka Itoobiya iyo khilaafaadka wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya u dhaxeeya, sida uu ku waramay wargeyska Middle East Monitor.
sida uu wargeyskan ku waramay Soomaaliya ayaa muujisay jahwareer ku aadan laba qaraar oo ka soo kala baxay jaamacadda Carabta taasi oo dhinac kale ay u weeciyeen warbaahinta Carabta gaar ahaan tan Masar. wargeyska oo maqaal dheer ka qoray xiriirka diblomaasiyadeed ee soo jireenka ah ayaa waxa uu sheegay in xiriirkaasi oo socday ilaa 1960 meeyadii markii xukuumadaha Muqdisho iyo Qaahire ay gaareen heshiisyo siyaasadeed oo isku tiirsanaana. garab istaagyadii ay Soomaaliya u sameysay Masar oo wargeysku tabiyay waxa kamid ahaa in Soomaaliya ay taageertay heshiiskii nabadda ee Camp David taasi oo Egypt ay la gashay Israel 1978. dhaawaca gaaray xiriirka Soomaaliya iyo Masar ayaa u muuqda in uu soo afjari karo cilaaqaadka labada dawladood haddii aysan helin cid wax ka qabata ama xal ka imaan dawladahan isku haysta waxyaabo aysan wadaagin. Soomaaliya ayaa si cad waxay u sheegtay in ay taageersan tahay Itoobiya marka laga hadlayo muranka biyaha webiga Nile oo isku haystaan Masar. waana tan ka naxisay xukuumadda Qaahira maadaama garab istaagii ay ka heshay wadamada Carabta ka weysay Soomaaliya. sanadba sanadka ka dambeeyay waa uu sii xoogeysanayay xiriirka laba geesoodka ah ee haatan sii dhamaanaya. Masar kama gamban jirin in ay af iyo adin ku difaacdo Soomaaliya sidaasi oo kale dawladii dhexe ee dalka 30 sano ka hor maamuleysay waa ay garab taagneed. daawadayaal waanaga inta warkii caawa aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku mahadsantihiin daawashada warkeena. inta ku kulmi doono warkan warkiisa xiga nabadgelyo.